tartanka bilowgiisiiba waxay dadku mar kaliya wada subciyeen ninka madow katimaha dhaadheer inanka reer daraawisheed goolhayihii sool waa si xoroole muxuu ahaa Kenya laga keenay wadanka uma dhalan iyo dhawaaqyo kale ayaa Facebook sidii uurada mar kaliya isqabsaday Lambaza carabka waxa loogu badiyay iska daa kubad dhaafta inanka soo weeraraya si tardhanaya taageerayaasha xulka ku soo beegmaana wax kale carabkooda waa qaban waaye aan ahayn allow malakulmeedkii u keen waana heerka ay gaadhay cabsida laga qabo inanka reer daraawisheed ee goolka taagan inkasta oo sidii kulmiya dalka u qabtayba burcadii baawarka kubadda lahayd galin horeba habaaska lagu liqayay haddana doorkan burcadii ma ahayn niman dhaarsan oo inanka gaaban cinjirka daafaca taagan iyo shiikha goolka ku xaliilsan watay ayay ahaayeen gobolka raggana waa loogu dhawaaqay maalintay safanayaan garoonku buux ayuu ahaa balse reer burco meelixdaa ku kacday markay arkeen Sheekh Xamse oo hin garoonka la gelaya calaamadii kabtankana u bixiyay cinjirkii daafaca gobolka joogay sababtuna ahayd tii habar hayd la sii qaadi qabyaaladu markay jaafaajir keentay inkasta oo burco gelin horeba hooygadii ku laabatay haddana waxay noqotay magaaladii ugu hadalhaynta badnayd intay ciyaaruhu socdeen taageerayaashii togdheer gobolka ragga iyaga oo la cabursan boodhkan gelin horeba lagu liqay ayaa haddana wasaaradii ciyaaruhu ka dabageysay 4 sano oo kubadda ma soo gali kartaan ah koomay ku jiraanba hawda wadata taageerayaasha ugu mayalka adag ee taarabuunka kaga dhaarta waa inoo caawa ayaa karkaarka koobka weydaarisay baran oo ah xulka kaliya ee abid ciyaaraha Somaliland haystay ballanqaadka ah 200,000 oo dollar ayaad helaysaan haddaad koobka soo qaadaan inkasta oo baran ahayd xulkii ugu adkaa abid ay hawd wajahdo oo 90 daqiiqo ee ciyaarta iyo 30 daqiiqo kale lagu daray 0-0 waxba natiijada ka dhigay balse baran markii gobolku u dhacay garoonkiina mugdi iyo la isma arkaan noqday rikoodhayaal la laadanayo goolka toosh lagu ilaynayo xaaladaas iyada ah waxba way ka fahmi waayeen koobkana weydaarte waana ciyaartii ugu horeysay ciyaaraha Somaliland ee habeen mugdi ah la isla gaaro dadkiina mar kaliya Facebook ay ku soo wada daabuleen warar ay ciwaanna uga soo dhigeen oo ileen garoon bilaa leyd ah ayaanu ku ciyaari jirnay dawladday ku caayayeen balse iyaga ku dhaliilan xulka baran guul darrada koobka maarta ah waxa kaga weynayd 200,000 ee dollar ee laga kadab gooyay yeelkeeda huleele sanaag saaxil iyo saraar xagga iyaga oo eegin ayay basaskoodii raaceen iyaga oo iskugu sii jiibinaya waxba baalaha iga yaacay iyo wixii helan la yaabay gobolladii bariga oo cadhaysan xulalkoodiina tigirka baska badankoodii loo jaray ayaa naawilayay inamada daraawiishta soo shafardaha ku jaraynaya oo lambasahoodii wata inay garoonka boodh ka kicinayaan balse waxay dhaheen fiishii markii laaska iyo daadka madaxa la isu geliyay yeelkeed bay dhaheen markii inamadii awlaadul caasimo la baxay afka ciidda u dareen awdal xulkii boorama goor horena ay baska raaceen kuna mudaharaadayeen ahuna offside ayuu ahaa mar kaliya Facebook taarabuunkii iyo qowmiyadii ciyaaruhu miyaanay wada adeegsan kelmadda calaamad su'aal oo la isweydiinayay inankii timaha dheera goolhayihii Yuusuf mucjisadii Lambaza maxaa ku dhacay sawta daad mareer daad kaga dhigtay maaha
4 gool ayaa loo dhiibay waxa inanka carabka lagu badiyaba laaskii daraawiisheedna daad madheer ayaa tigirka baska u jartay iyadoo la leeyahay war wuxuu maxay ahaayeen gool 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 ciyaaryahanka lambarka xulka gobolka daad madheer u xidhan ee 26 oo daafaca uga ciyaaraya oo Lucio la yiraahdo ayaa markaasi goolka u saxaxay koowaad ee ay la yimaadeen ciyaaryahanada xulka gobolka daad madheer laadeer tawakal madax ciyaaryahanka xulka gobolka daad madheer dhinaca weerarka uga ciyaaraya goolkii labaad ayay xulka gobolka daad madheer ay la yimaadeen goolkii labaad ayaa xulka gobolka daad madheer ay la yimaadeen ciyaaryahanka isagu lambarka 30aad xulka gobolka daad madheer u xidhan ayaa markaasi goolkaasi u dhaliyay خدير مصطفى إلى هات العيتيقة الشرماكي يتقدم هو صلاة عيتيقة جول با 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 جول lambaasihii maxaa helay lalahaana waa nin ay dhaawaceen oo kooma ciyaaraye mar kaliya ayuu sariirta cisbitaalka ka soo muuqday isaga oo habeen iyo maalin miirdoorsan عيتيقة وردي أحمد وردي كبدا سياتن وردي أحمد عالمي وردي أحمد عداري gabiley oo xasiidoodii ku laafiyoonayana xulkii taleexda taariikhda iyo taalleeda sayidka ayay tunka soo qabteen iyagoo la daba ordaya tigirkii baska gabileedu waa gabileedii hadda tii liqday gobolkii ragga si kasta oo gobolladii bariga xulalkii faraha badnaa inamadii dhaarsanaa iyo taageerayaashoodii fuudkooda loo cabay wallaahi ool garoonka laga sifeeyey andhi waaxid daad madheer ay ka soo hadhay haddana iyadaa dhiiggii barigee basaska badankooda loo jaray lagu shubay oo ciyaar maahee final bay sii joogtaa gobolka hawd ciyaarta doorkan dhimasho dhaawac koobkoo la weydaariyey 5 sano oo kubadda lugma soo geli kartaan ah ayaa mar kaliya garoonka Hargeysa Stadium looga xambaariyay oo ool waa wada guuldarooyin iswada barkane sababtuna waxay tahay markay daad madheer rikoodhayaal ku caraabisay xulkii dhaaran jiray ee gobolka hawd mar kaliya xaaladda garoonka Hargeysana waxay isku bedeshay xaalad kala yaac kala gurasho kabta ilada xabad sanqadhays leefkii oo hawada laga saaray siirwalihii ajaanibka ahaa oo naftiisa ciidan dabadii ula firdhaday markii talaata dhirbaaxo iyo feer daran dooriya lagu dhifto waa gartii oo adiguba caqlaad leedahay firdho maxaa dhacay moojiye daad madheerna kursiga finalka koobka ayay sii fadhiisatay gabiley inkasta oo huunna koobka doorkan annagaa leh saadaashoodu ahayd balse iyagana inamadii awlaadul caasima xulkii Hargeysa calaashaan marodi jeex ayaa geeyay halka baskoodu ka baxo iyaga oo leh bay bay huunno iyaguna waxay ku sii jiibinayeen waa yahay huunna waa yahay isku wada keeno gobolladii bariga xulalkii faraha badnaa inamadii dhaarsanaa iyo taageerayaashoodii wallaahi garoonka waa laga sifeeyey andhi waaxid daad madheer ayaa ka hadhay baryahaba bahalka galbeed baa sii wato kanna iyaga dhagaha qabsan ayay nuxnuxda saadaashu ahayd balse daad aan la muusi karin mar kaliya la waabin xaashee aan la jabin ayaa mar kaliya barigii sannadihii u dambeeyey habaaska lagu liqayay ka soo dhex mudhyidhi daad madheer ayaa kursiga finalka kusii sugaysay inamada awlaadul caasimo la baxay waxa kaliya oo la isweydiinayay waxay ahayd talow maxaa dhici doona oo nimanka daadku waxay noqdeen xul aan la saadaalin karin dad badanna waxay candhuufta saadaasha dib u liqeen markii daadku soo jabsaday derbiyadii adkaa ee sool iyo hawd ciyaarta finalka oo xamaasad gaar ah wadatay 1-1 seem ayay ciyaartu ku socotay daqiiqadihii ugu badnaa
dad badan waxay saadaalinayeen in 30 daqiiqo lagu darayo rikoodhayaal la isku laadanayo balse mar kaliya xaaladii way isbedeshay waana daqiiqadihii ugu dambeeyay inan balaayo ah ayaa lugtiisa ka ganay kubad aad gantaal moodo goolkii Hargeysa ayay kubaddu dhex fadhiisatay inamadii daadku dabaaldeg ayay bilaabeen taageerayaashoodina way u foori dhawaaqayeen xulkii Hargeysana mid kasta kooma ayuu halkiisa ku galay inkasta oo ciyaarta 4 daqiiqo lagu daray laakiin afartaasi ma noqon afar daadka buqlaynaya moosta daad madheen iskoorka u xiran ayaa ah inay koobka qaadeen iyadoo aan hal ciyaarna laga badin intii uu tartanku socday yeelkeeda bahalkii labada dhagood lahaa bari buu ka degay